السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أهن وحفظت إن مسلم تهاي وآد جوجت ودن كان يوروب كترسن مالها هل مسجد وكليا دين إسلام كاللغم بران كرو اسكول دا كنتم كن أو حمناد أو كترسن بلشة مسلم كأه سر رسمي أهلا ما قنصنا وحان كهذا سلوفاكيا oo ah wadan ay xaq ku leeyihiin kontonku noo saxiixaya ka yimid dadka waaweyn oo ka tirsan dadka muslimka ah ayaa loo baahan yahay si loo aqoonsado laakiin sharcigu mar walba sidaas ma ahayn waqtiyadii hore si muslimiinta loo aqoonsado waxaa loo baahnaa oo kaliya 20,000 oo saxiixa muwaadiniin dalka ah ayaa ku filnaa helitaanka aqoonsi gobol oo muslimiin ah laakiin 2007 waa la bedelay sharcigan markaa bulshadan muslimka ah waxay u baahnayd 20,000 oo dhalinyarta gaarka ah inay saxiixaan sharcigan inkastoo muslimiintu ay yihiin qiyaastii 0.1 dadka haddana qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka waxay ka muujiyeen islaamnimadu iyagoo sharciga difaacaya islaamnimadu waxay ka bilaabataa kabab iyo barad islaafa oo durba dhacaya markaa ogow waxa halkan ay ku yeelan karaan 5 ilaa 10 sano sanadkii 2017 golaha shacbiga ayaa in ka badan 2 laab ka dhigay saxiixyada loo baahan yahay inkastoo madaxweynaha Slovakia Andres Kisafeto مسلمين ahaan runtii waxaan u baahanahay aqoonsi buuxa oo aan dareeno in si fiican loo aqbalay oo aan si wanaagsan ugu dhafanay dawladda iyo bulshada annaga muslimiin ahaan waxaan nahay muwaadiniin waxaan leenahay shaqooyinkeena kasoo sidoo kale xuquuqaha qaariga xaqayaga in aan si rasmi ah loo aqoonsan wuxuu saameyn ku yeelanayaa nolol maalmeedka muslimiinta Slovakia ma yeelan karaan hogaamiye diimeed rasmi ah fuliyana guurka islaamka oo la mid noqon lahaa kuwa madaniga ah mana heli karaan dhaqaale dawladda ah si ka duwan xubnaha 18 diimeed oo kale oo ka diiwaan gashan wadanka lehna xuquuq laakiin diinta islaamka lagama aqoonsana wadankan muslimiintuna ma laha wax xuquuq ah waxayna sidoo kale ku khasbanaadeen inay iibiyaan dhulkan ay iibsadeen 1999 halkaas oo aan marnaba loo ogolaan inay ka dhisaan xarun dhaqan oo muslimiintu leeyihiin islaam nacaybka ayaa ka jira Slovakia qof kasta oo caadi ah oo reer Yurub ah masiixa madiinaawe ah waa inay ka cabsadaan jinkan shaydaanka ee shaydaan abuuray oo ah diinta islaamka xaaladdu aad bay uga sii dartay kadib markii qaxoontigii ku qulqulay Yurub sanadii 2015 maqnaanshaha masaajidda ayaa xitaa loo adeegsaday in lagu diido qaabilaada qaxoontiga muslimka ah siyaasiyiintu aad bay ogaayeen inay fidin karaan xoogga jawi cabsi ah iyagoo ka hadlaya diinta islaamka iyo qaxoontiga iyo waliba ogaanshaha iyo si uu la kac ah iskugu dara mawduucyadaas sanadkii 2017 islaam nacaybka ayaa ka naaqusay inuu ku faafo bulshada laakiin muslimka ayaa weli sugaya xuquuqdooda asaasiga ah Slovakia waa xubin ka mid ah midowga Yurub sharciga Yurub ayaa tilmaamaya xuquuqda asaasiga ah waxaa damaanad qaadaya qaran ahaan aniga oo cuskanaya wadamada dastuurada dalal gaar ah laakiin dalkan xubinta ka ah midowga Yurub ma siinayo dhammaan muwaadiniintiisa xuquuq siman